Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbaahinta Maanqaad media waxaan idiin soo gudbinaynaa caalamkii wararka ugu waaweynaa aqliga wacane karaamo watiyo wax kara cilmi loo waqtigu la socda qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid noqonaya boqolaal rasaas iyo hub isugu jirta oo laga soo saaray howlgal laga sameeyay guri ku yaala magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka laba ka tirsan muqaabaraadka wadanka Ruushka ee dalka Montenegro joogay oo lagu xukumay maxkamad min 15 sano oo xabsi ah markii lagu helay baa la yiri in ay wax ka abaabuleen afgambi lagu doonayay dawladda dalkaas ku xigeenka hogaamiyaha mucaaradka wadanka Venezuela Juan Guaido oo xabsiga loo taxaabay 11 qofna waxay ku dhaawacmeen shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka Yegon ee ku yaala wadanka Myanmar markii diyaaradda ay wadada loogu talagalay diyaaradaha inay ku cararaan ay ka baxday ee runwayga loo yaqaano iyo wararkii ugu dambeeyay doorashada Koonfur Afrika 116 sano jir kamid ah dadka codeeyay waxaa lagu magacaabaa Binia Sakara waa qofka ugu da'da weyn wadanka Koonfur Afrika wixii uu sheegay markuu codeynayay ayaan idin haynaa qaybaha dambana waxaan idin hayaa Gabar Soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa bal dhibka uu leeyahay in qof jacayl lagu qiyaamo aqliga wacane karaamo watiyo wax kara cilmi loo waqtigu la socda anigu xasan xayi Cabdullaahi ayaa soo saaray idinlana socodsiinaya mar kale iyo ku soo dhawaada Maanqaad media iyo caalamka Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan waa khamiis taariikhdan ay ku beegan tahay 9 bisha shanaad ee May 2019 ismaqal wanaagsan mar kale ku soo dhawaada Maanqaad iyo caalamka aan ku bilowno maxkamad ku taala wadanka Montenegro ayaa xabsiga dhigtay oo maxkamadii ay ku riday xukun 2 nin oo la sheegay inay u dhasheen wadanka Ruushka kuwaas oo la yiri waxay kamid ahaayeen qaybta muqaabaraadka ee dalkaas Ruushka waxay ku sugnaayeen wadanka Montenegro 13 qof ayaa maxkamaddu ay xukun ku riday oo 2 kamid ah ay Raashiyaankaasi yihiin min 15 sano ayaana xabsiga loo geliyay in ay ku dhameysan doonaan dalkan jasiiradda Balkanka ku yaala ayaa waxa lagu eedeeyay shakhsiyaadkan in ay ka dambeeyeen ama ay wax ku lahaayeen afgambi dhicisoobay oo dawladda la doonayay in lagu rido weerar argagixiso oo afgambigaas fashilmay ah ayaana la sheegay in dawladda ay ka hortagtay sida uu maanta oo khamiis shaaca ka dhigay gudoomiyaha maxkamadda xukunka riday Susana Mugoza labada nin ee Raashiyaanka ah ayaa lagu kala magacaabaa Edward Shishimakov iyo waliba Vladimir Bobov labaduba waxa ay wajaheen baa la yiri xukunkaas ay maxkamaddu soo saartay wali dawladda Ruushku warka ma soo saarin arrintan sirdoonka dalka Venezuela ciidamo ka socda ayaa xabsiga dhigay ku xigeenka hogaamiyaha mucaaradka dalkaas ninka la xiray ayaa lagu magacaabaa Edgar Zambrano waxaana la sheegay inuu yahay ku xigeenka Juan Guaido oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya ee mucaaradka ciidamada ayaana waxa ay sheegeen in meel amniye la geeyay oo wax dhibaato ah uusan la kulmin 8 bisha oo shalay ku beegneed ayaana ciidamada ay xabsiga dhigeen waxaana loo haystaa Maduro go'aan
ka dhan ah oo 7 bisha soo baxay oo ay Sambarano iyo xisbigiisa ay saxiixeen 6 ka mid ah garyaqaano sharciga bartay ayaa sidaas oo kale ciidamadu ay ku raad joogaan maxkamad ku taalo wadanka Venezuela ayaa sidaas oo kale waxa ay shalay xukuntay dad lagu eedeeyay in ay abaabuleen afgambigii lagu ridi lahaa bilowgii bishan madaxweyne Nicolas Maduro. garoonka diyaaradaha ee Yangon wadanka Myanmar ayaa la soo warinayaa in diyaarad ay ka baxday wadada loogu talagalay ee diyuuraadka ay ku cararaan ee runway-ga loo yaqaano 11 qof ee dhaawacmay waxa la sheegay midkood inuu yahay dowladihii diyaaradda 9 waa rakaab qofna waa midka dadka u adeega inta diyaaradda ay gudaheeda ku jiraan roomihigana oo daay iyo cimilada oo xumeyd ayaana la sheegay in ay eersatay diyaaraddaas inay wadada ka baxdo sawirro la geliyay Facebook ayaa muujinaya in diyaaraddan oo ahayd magaceeda Biman Bangladesh Airlines ay garaacday oo ay afka la gashay cooska ku hareeray yaala runway-ga diyaaradda inay ku ordaan loogu talagalay wakaaladda wararka AFP sawirqaado ka tirsan waxa uu sheegay in haween uu arkay dadka waxyeelada soo gaartay oo dhaawacyo qaba kuwaas oo gaadiidka ambalaaska ama iscaafka ay ula cararayaan cusbitaalka maamulka garoonka Yangon International Airport ma aysan xaqiijin waxyaabo kale oo ay ersatay inkastoo howlgal baaritaan ah oo hadda socdo diyaaradana ay waxyeello soo gaartay waxaana la sheegay in ay eedsatay roob mahigana oo ka da'ay halkaasi waa hagaag weli waxaad nagala socotaan Maanqaad Media guri ku yaala wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles waxa la soo sheegaya in laga soo saaray boqolaal hub ah kuwaas oo rasaas iyo hub isugu jiray ciidamada ammaanka ayaana howlgal qorsheysan ka fuliyay gurigaas oo ay kaga soo saareen hubka tirada badan waxa sidoo kale la soo saaray walxad darooga ah oo alcohol iyo tobacco ay kamid ahaayeen ilaa hadda faahfaahinno badan laamaha amnigu ma aysan bixin aroortii arbacadii 4 habeenimo ayaana howlgalka la fuliyay baa la yiri magaalada Los Angeles dhinaca buuraha teedsan ayaana la yiri waa laga sameeyay howlgalka ku dhawaad 1,000 qori ayaa kamid ah baa la yiri waxyaabaha ciidamadu ay soo banaan bixiyeen oo guriga laga soo saaray waxa uu ahaa sida guri warshad oo kale hubka lagu kala iibsan jiray kooxo gangis ah ay deganaayeen xaalad qatar oo dhinaca amniga ayaana dawladdu laamaha amniga ay sheegeen in ay ku ahaayeen arintani malaayiin dollar ayaana ay ragaas ka macaashayeen ee guriga hubka laga soo saaray ahaa faahfaahin kale lama bixin iyo shakhsiyaad la soo qabtay intuba waa hagaag bal markan aanu eegno wadanka Koonfur Afrika doorashada codayntii la dhiibtay waxaa la soo warinayaa in tirinta meelaha qaar ay bilaabatay waxaana hadda ku horeeyay xisbiga ANC meelaha qaar codadka doorashada la tiriyay dadka codaynta doorashadaas Koonfur Afrika dhiibtay waxaa kamid ah qofka ugu da'da weyn wadankaas waana Benias Sakara 116 sano jir weeyaan ninkani waxaana isaga oo salaan ka qaadanaya dadka kale uu codka dhiibtay sheegayna inuu doonayo nabadgeliyo iyo nolol waarta inuu ku sii jiro majalada Times Life ee South Africa laga leeyahay ayaa qortay sheekada ninkan waxaana Sakara oo 116 sano jir ah uu sheegay in South Africa ay tahay wadan waqtiyo badan wajiyo kala duwan lahaa uu u soo joogay waliba waqtigii Nelson Mandela ayuu sheegay in South Africa ay ahayd wadan waqti badan la geliyay oo lagu dadaalay
serial Ramaphosa iyo weliba Julius Malema oo EFF iyo ANC kala hogaaminaya ayaana doorashada ugu badan hadda loolanka u dhaxeeya. waayahay bal markana waxaan idinla wadaagayaa muuqaal ka hadlaya bal jacaylka iyo qiyaanada la isku sameeyo dhibaatada laga dhaxlo. Fartuun Habi ayaa ka waramaysa bal waxyaabaha laga dhaxlo qiyaanadaas jacaylka uu leeyahay. Nala daawo. maanta waxaan ihayaa qiso ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo ila sheergareeyay ila qaybsaday maasha Allah horta walaalkay aad iyo aad ugu mahadcelinaa sida quruxda badan oo qisadiisa oo iiga sheekeeyay kadiisa hadaa guda galno waxa waaye wiilkaaneti gabar ayay muddo saaxiibo ahaayeen wadankii ay joogaan oo yar yar gabadha xiriir markay lahaayeen oo in badan wuxuu dhahay gabadha aan aad u jeclaa waa ku kalsoonaa aydan way jeclaad laakiin waxaan arkay uu dhahay adii sida xiriirka aan wada socon gabadhu dhahay waxa ogaaday inay qiyaameyso animaan ogeyn daacada oo ahaa xilliga shaqo ka soo baxay xilli wali waqtiga siin jiray okay waxay iga baahdo waa siin jiray iskuul la dhigan jirtay uu dhahay waa caawin jiray oo no iskuul ma jaamacad uu dhahay astaghfirullah jaamacad dhigan jirtay uu dhahay waa ka caawin jiray jaamacada wax waliba ay u baahato shoppingkeeda waa siin jiray uu dhahay markaan waxa uu siin jiray wuxuu dhahay qof wanaagsan oo xaggayga ana oo qalbigayga aan jeclaan ahaana u siinayo uu dhahay ayada ma weydiisan jirin laakiin ana u garan jiray ani marka wanaag badan oo hay madaxa ii saarneed maalmaha kamid ayaa waxa maqlay ayuu dhahay in oo la soo doontay oo la aroos rabo markaas waxaan ku dhahay waxaan maqlay in lagu soo doonto guursada waa adimiya markaas iraada animi ihi waa walaashay oo iga weyn bis ani waan farxay u dhahay walaashayda u maleynay markaas wuxuu dhahay okay anina ku soo doonanaya caruuska markuu niga dhamaado ina aroos anna kula gala ayaa rabaa maasha Allah walaalahayga qaali aan jecelahay sheekadii intaas kuma ekeen bis wuxuu dhaani waxa aaminay inay walaashata markaas ku dhaaros walaashan ugu casuumaysido markaas ay u dhahday ha waayahay waa iska iman kartaa laakiin shaqo leedahay ma iska deesid abaay markala ku bara ku casuumahay waaba ilaa waa beenteedu dhahay ayada arooskeeda waaye waxaan iga dhigtay in uu guursanayo wiil kale oo walaashada bis marka arooskii wiilkii wuxuu dhahay waxaan arkay ninkan iyo naagtan oo gacanta iska heestaan isku qanacsan oo arooska joogan ayaan arkay marka arkay wuxuu dhahay waan naxay waan gariiray adii waxa ogeyn hadaa lagu sheego waan naxaysaa waan cabsanay waan gariiraysaa bis markaas wuxuu dhahay dan qof oo kugu qaali ama qof aad jeceshahay wax aad ka filanaynin hadaa ku aragtid waa sii naxaysaa ko wuxuu dhahay walan waxa u naxay saaxiibkayga aan ku arkay naagta kooma tahay laba waxa ka sii naxuu dhahay jaceylkayga oo hadana saaxiibkayga guursatay aniyo yaaban oo naxsan u dhahay waa iska soo tagay arooska waqti waa qaadan waayo dhaqaamaadaan xiriir naga dhixin jir ayadaha ay xumayso laakiin ani maanan xumaynin bis waa la hadlay waa la sheekaystay markaas ila Nairobi aan joogaa ilmaan soo dhalay ninkii waa soo kala tagnay waa isfahmi waanay wuxuu dhahay jaceylka lixsan ninka ala jileysay oo ani dartay ay iga tagtay isku fahmi waasay in sheeg markaas waxay dhahday qofka aad jeceshahay ugu qof kale adin ku jecel dhaada ani asaga jecelaay asagana qof kale jecelaay anina qof jecel inaan ka taga laga yaabay jir because qaladkeeda ogaatay inuu wiilkan jecel yahay America joogay ogaatay gabadhi bis wiilku wuxuu dhahay okay waxaas iska ilaa hadda noloshaada iiga sheekay markaas ay tiri meeshaan iskaaga noolaho neero waxa ahay malahan iskaabula kuwaasana ka bab aday daruuf waheeda uu sheekaysa wiilkiina waa taqaana qof aad taqaanid haduu dhibkiis ku sheego waa caaminaysa hadana qofku wuxuu ku siiyahaybo qof aad jecesho xiriir la martay waa ma wadaafi kartidbo waa ina qasab asxaa u sameeysaa ama facal khayr u sameeysaa subhanallah wiilkii wuxuu dhahay gabadhii waan iska caawin jiray waxa u baahato waxaan ku dhahay hadda ani xisaabta iguma jirin ina meel kala biil u diro laakiin hadda maadaana ani adi isoo sheegatay dhibkaada iyo wuxuu dhahay bishan lacag ku soo raadina ku soo diraa biil iyo waxa cunto ka dhigatid gabadhi sidaa u caawin jiray biil u diri jiru dhahay saabiil ugu diraayo dhahay kadib gabadhi waxay u dhahday qaladkayga oo hore inaan saxaan rabaa abuu kabaran hada isguursano markaas uu dhahay xaasa la reera leeyahay baayo maxaa sameeyaa markaas waxay dhahday dhib ma laha reerkaada waa kugu rabaa markaas uu dhahay okay waan ka soo fikrayaa markaas saas kadib wuxuu dhahay ana sas oo galaar rabo dhahay waan farxo dhawarka markay igu dhahday kadib ana oo galaar rabo wiilkii saaxiibo ahayn
فيسبوك إلى صاحب لي سيتم في عن هاي إسلام هذا كبرن وفي عنتها الحمد لله مركز وحو إيده هو هاي xaaskaygu way iga soo dhuumatay Nairobi soo aaday maxaa xaaskada kaaga soo dhuumatay ma aqaan buufisi waxaas aa qabtay way iga soo tagtoo Nairobi soo aaday wallahi ha okay ma sha Allah gabadhaasete ani idoo asna qaanaay maniskay ka soo wiilka dhahay markaas uu dhamayo okay waaya ana waxaan diiday dhahay inaan dadku isku diro ama aan dhaho gabadha xaaskada jaceyl naga dhaxeeyay وأنا قيانتي هذا ما أنت عليك كاسة تكتب قيانتي وقف حم وادي ويودهاي وأسكع أمس بلادك كأسجع ضحما لقى ما ضحما ضد ويل في عن وما شاء الله إله كبرك أبوه وحد هاي ودهاي ما دام ويل قصص دهاي قبل ورثنا الشهادة مركز أبو حاول أباي هي سيدنين كان هذا وقصة تكتب مركز واحد نينك محوك وقسميه maxaa oo taabanaysa ilmahan maxaa ugu soo tagtay maxaa haysan waasay markaas ay ninka uu xumeeyay saan uu yeelay kan uu yeelay adi wax badan ee ka sheegato cilada wiilkiina wuxuu ii sheegay inuu qabo ee ka soo dhuumatay ee buufis waxa sarta okay waayahay ani markaas waa fiirinayo dhahay damaceeda iyo niyadeeda waxa ku jiro markaas waxa dhahay hay waayahay وان واكو كورسنايا هي نيروبي كو جيجينا مس حمرا كو جيجينا كوغو ايمانا markaas dhaad may ani waxay dhaad meesha aad ku nooshay inaa ku noolaada rabaa ama inaa isku noolaana ama inaa san kala ahaan sasmiya okay waa fahmayo dhahay gabadha in ay rabto dibadda iyo meelahaasiyati marka wuxuu dhahay dumarka qaarkooda qalbigooda iyo aqligooda waxa ku jiro dhahay wasaq iyo xasdi iyo xaqdanimo dhahay daacadna marwaan dhahay dadka daacadda ee markay helaan oo maskiinka ay way ku duntaan marka wiilka wuxuu dhahay gabadhaasi Soomaaliya inuu joogo saaxiibkayga guursatay way iqayaantay ayadoo iqayaantay kadib hadana markaan saaxiibkayga soo qayaantay way mahadsantahay fartuun habi oo sheekadaas nala wadaagaysay aqliga wacane karaamo watiyo wakar cilmi loo waqtigu la socda gudahanna intaasaan kusoo gabagabaynaynaa maanqaad meediya caalamka anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa soo jeedinayay iskuna soo duway inta aan wararkan oo kale isku arki doonno saaxiibada nala socdo sidaas iyo nabadgelyo Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan